gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani Axmed Muumin Seed oo maanta si gaar ah ugu waramayay telefishinka madaxa bannaan ee Somaliland Space Channel ayaa waxa uu ka hadlay isla markaana halkaasi uu ka biyaamiyay go'aan xisbigaasi uu ka qaatay telefishinka qaranka Somaliland iyo guud ahaanba wasaaradda warfaafinta kadib markii barnaamij dood ah oo ka baxayay telefishinka qaranka Somaliland la sheegay in barnaamijkaasi uu baaqday xisbiga mucaaridka ah ee wadani balse gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga wadani Axmed Muumin Seed waxa uu sheegay in xisbigu uu bayaan ka soo saaray barnaamijyada telefishinkaasi maadaama uu yiri aanu dhaxdhaxaad ahayn isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri TV-gaas ma aragna inuu TV qaran inuu yahay way TV-ga qaranku waa inuu dhaxdhaxaad noqdaa waa inay xisbiyada mucaaradka barnaamijyadooda ka baxaan waa inay ka baxaan xisbiyada labada xisbi mucaarad barnaamijkooda ka baxo waa in doodaha wixii aan talaabo qaadno xisbiga gudihiisa inuu noo soo daayay laakiin waxa ceeb ah oo arkaysan iska daa xisbiyada gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland ana gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waa ninka saddexaad sharci ahaan dalkan ma inaguna miidaan arag hadda aragtay inaga sheegay anaguna ma naarig uriya Cabdiraxmaan TV-ga qaranka ka socda macna arag anu ma arag runtii aniguna aanu ka socdo liga isku daayay ma nisarag runtii maadaama hantida qaranka lagu isticmaalayo maadaama uu saddex xisbi qaran dhaxu hayn maadaama aanu muxuu ahaayay anagu wax barnaamij oo leenahay iyo waxaan leenahay in ka bixin in maalinta dooda uun ay anaga noo yeedhaan runtii go'aan xisbi weey imkaan ni sheegayay abadan xitaa ma tagayno weligeed iyo xisbi wadani waxa weey waana go'aan xisbi waan cadeynayaa ma tagayno sababta aan u tagayno wasada waxaan weeyay waana go'aanka xisbiga taasi marka tan muxuu ahaayay hadii dib u dhigaan iyo hadii hore soo dhigaanba dooda kama qayb galayno waxaan arkay runtii oo aad uga xumahay in la yiri gudoomiye ku-xigeenka wadani baa ka baqay runtii waa beenimada dooda nala geliyay hore baan dood u wargalnay hadii ay doonayaan inaan doodno TV-yada madaxa bannaan ee ninku ka tihiin iyo universal iyo cable inaka iyo TV-yada kale hay maadaama dooxa oo soo dhaadhacan waana doodayna laakiin TV-gaasi TV dhaadhaxada maaha mana tagayno waan ku go'aanay inaan waan go'aan isbuucii laakiin hadii dood rabaan TV-yada madaxa bannaan Somaliland waa badiyiin kuwa hay maadaama dooxan geesta kalena Axmed Muumin Seed gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani waxa uu ka hadlay abaaraha ballaaran ee saameeyay qaar ka mid ah gobolada Somaliland arrimaha doorashooyinka ee la filayo inay dalka ka qabsoomaan sanadkani iyo waliba siyaasadda arrimaha dibadda Somaliland oo sheegay inay tahay mid gabaabsiya wadal asxaab qaran oo saddex xisbi qaran ka jiraan waxaanu qaadanay sistamka dimuqraadiga shantii sano mar doorashooyin xor ah dadka ka dhacan runtii xukuumadda maanta jirta si xor xalaal ku timiday 5 sano ayaa la doortay mandidka ay dadka shacabka reer Somaliland codka bixiyeen in madaxweyne Siiraayo u doortay inuu ahaado madaxweynaha Somaliland waa 5 sano runtii shantii sano hadda waa gabaabsi oo saddex bilood ka haray dastuurkeena dalkuna ma dhigayo in 5 sano wax ka badan madaxweynuhu ku soo fadhiyo sharci noo ogolaanaya ma jiro wixii 5 sano dheer hadii laba cisho inta maqto waxaan xukuumaddu 5 sano waddanka soo haysatay waxay xaq u lahayd labadii sano ugu dambeeyay ama sanadkii ugu dambeeyay iyada mas'uuliyadda doorashooyinka iyaga saaran inay diyaariso komishanka doorashooyinka agabka doorashooyinka in diyaarsahay laakiin runtii xukuumadda iyada doonaysa inay doorasho dalka ka dhicin way bareeday waxaad arkaysaan in doorashadii ay nooga hadhan tahay 3 bilood saan ay doorasho ku dhacaysaan aanu jirin xukuumadduna ay wax wareyn oo iyadu isku mashquulsan tahay dadku wax kale kaba moodo jabsanay wax ka moodo jabsan yihiin oo dawladdan hadda tinga talada haysa intay timaday wasaaradda arrimaha xagga arrimaha dibadda oo fashil weyn ka nahay waxay naga badan muxuu ahaayay maamulo inaga liitay inuu dawlad beenaayo waa albaab walba ka ah laakiin ilaa ay mumkin tahay xukuumadda qabsatay dawladda aragtay wasiirka arrimaha dibadda halkan uu joogaa markuu wuxuu ilaa kulmiye musharax ka yaala halkan ku sugay laakiin awliya arrimaha dibadda waa way beelaasan yihiin way waxay leeyihiin albaabada la garaaco waxay in mudaharaadada la soo celiyo waxay in qadiyadda Somaliland iyo gool isku taagay aanu marnaba gool u tagaynin
isku soo wada duub oo hadalkan ka soo yeedhay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani Axmed Muumin Seed ayaa ku soo beegmaya markii dhawaan telefishanka qaranka Somaliland ay sheegeen in barnaamijtooda uu ka baxay telefishankaasi isla markaana ay isku soo horfadhiisanayeen saddexda xisbi qaran xukuumadda iyo waliba xubno ka socday golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland oo barnaamijkaasi u baaqday xisbiga mucaaridka ah ee wadani oo aan ka soo qayb galin barnaamijkaasi balse waxa hadalkaasi ganafka ku dhufanaya go'aankan uu xisbiga mucaaridka ah ee wadani ka qaatay telefishanka qaranka Somaliland oo sheegay inaanu ahayn mid dhexdhexaad ah Khalid Bulshaawi Somaliland Space Channel Hargeysa